qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee soo jeeda degmooyinka Dhuusamareeb Guraceel oo maanta ku shiraya magaalada Dhuusamareeb ayaa ka hadlaya shirka dib u heshiisiinta beelaha Galmudug iyo isku dhafka ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Ahlusunna. odayaasha ayaa sheegay in si wada jir ah ula dagaalami doonaan cid walba oo ka soo horjeesata shirka dib u heshiisiinta beelaha Galmudug isla markaana isku dayda inay faragelin ku samayso heshiiskii dhexmaray Ahlusunna iyo dawladda. ergooyinka ayaa waxay ugu baaqeen inay ka qayb galaan shirka dib u heshiisiinta beelaha Galmudug iyagoona ka dalbaday inay ka hor imaan dadaalada nabadda ah oo ay wado dawladda federaalka ee Soomaaliya. waa in soo dhaweynaynaa waxaan kaloo digniin siinaynaa mar labaad iyo mar saddexaad heshiiska muhiimka ah ee jilbaha dhulka loo dhigay qoomkii isku daya inay nabad darro ay ku soo abuuraan ama ay rabaan inay hoggaanka mar labaad ku hajaaciyaan meel aan loo aqoon in loo guuro waxaan ugu digaynaa dadku maanta afka iyo indhaha iyo diimahaba waa ka diyaar garoobay. waxaan rabnaa nabadda inaan daadihinno helno miro dhalkeeda. waxaan rabnaa wixii wax tabanaya afka hadalka inaysan dhaafsiin gacan iyo ikhtilaafna ay joojiyaan. aad iyo aad ayaa u mahadsantiin. heshiis aad u wanaagsan buu ahaa, ummaddu aad ay ugu gooxday, walla isku aqbalay. waxaan taageeraynaa heshiiskii la gaaray oo ay gaareen dawladda federaalka iyo maamulkii meesha ka jiray oo Ahlusunna wal Jamaaca. waxaan soo dhawaynaynaa heshiiskii baaqi ka dambeeyay oo loogu dhiibay ciidamada qalabka sida amnigii lagu wareejiyay oo lagu heshiiyay dawladda federaalka inay amniga la wareegto. waxaan taageeraynaa ilaahay idankiis wanaaggii halkaas ka yimid. aad iyo aad waxaan u bogaadinaynaa dawladda federaalka qaybtii ay ka qabatay inay dhammaystirto meeshii ay uga tagtay.